بسم الله الرحمن الرحيم حالة السوق وكجرو غارهان qaybta qudaarta hadii aan warbixin ka siiyo suuqu wuxuu ku jiraa runtii xaalad aad iyo aad u fiican ma sha Allah qudaartii wadanka ayaa muxuu haye taala qudaartii wadanka ayaa imika soo goday bariyahan ba socotay waxyaabo badan oo dalka dibadiisa ka iman jirina waxa lagaga maarmay qudaartii dalka oo taala oo shay kale gadisana waxaan filayaa imika dalka Itoobiya ee dibadda waxaan ka keenay imika ay tamayar intii badnayd dalka gudihiisa ay ka soo baxday suuqu waa nabadgeliyo wax kale iibsiga dhaqaaqo runtii kulay wasaarad balaaran way jirtaa laakiin haddana alxamdulillah rabbil caalamiin qiimaha qudaartu runtii horta waxa weeyaan shay qaaliya ayaa jira oo muxuu hayaa ay kamid tahay sida baradhada oo kale iyo toonta iyo shay kale oo caynkaas oo fara badan oo qaali way jiraan dalka dibadiisa ka yimaada laakiin se qudaarta imika waqtigan aan ku jiro sanadkan waa sanadkii ugu barwaaqada badnaa waxa imika inaga godhay maalin dhaweytay wali aan wax ka socon tamaradii wadanka oo imika ay timidtii dalka Itoobiya in qudaarta kala gadisan ee kale sida basasha iyo waxyaabahaasina waxaad moodaa runtii muddo dheer bayna soo hayeen iyaga laftooda dabayaaqsiin imika aad moodo inay sii yaraanayaan laakiin se wali alaana suuqyada qudaarta taala waxa u badan oo muxuu ahaay miisaanka koobaad leh qudaartii wadanka xagga qiimaha hadaynu ku noqono qiimaha qudaarta wadanku runtii uu ka jaban yahay dibadda ka timaada waana ka quality fiican tahay marka waxaan leeyahay qudaarta wadanku waxa weeye imika ayaad moodayna sare u sii socoto maadaama waqti jilaal la sii galay beeraheena ay u badnaan jireen waqti roobaad laakiin se muddadii imika aynu soo dhaafnay wadanka qudaartu way jabnayd haddana waxaad moodaa inay kor u sii socoto deewaana ceebteed ma hawaacadeed waqtidan jilaalka inay yara qaadiyo fariinta aanu gudbinayaa runtii waxa weeye dadka beeraleyda ah inay wadanka waxa laga beeraa ay ka wanaagsan yihiin waxa dibadda laga keeno in aanay gacan kale aanay sugin ee ayagu muxuu haayay isku hawlaan iskuna kaashadaan sidii ay wax soo saar u sameyn lahaayeen maadaama oo waxa ay soo saaraan aanay waayahayn suuq oo suuqeenu uu u baahan yahay wax kasta oo dadka beeraleyda ay soo saaraan waxaan leeyahay dadka tacabka intay bahdaa ku siiso beertaa kuma siiso dad ayaa hagarasho leh dad dhul hagarasho ma leh waxaan leeyahay wax soo saarku waa inoo ballan waxa si aan raacsan lahaa xagga xukuumadda iyo dawladda dadkan beeraleyda waxay u baahan yihiin in gacan laga siiyo sidii ay wax u soo saari lahaayeen in gacan laga siiyo sidii ay biyaha qulqulaya ee badda tegaya loo joojin lahaa ee loo sameyn lahaa biyo xidheeno sidii ay u heli lahaayeen riigag waaweyn oo muxuu haayay wax lagu soo saaro oo lagu tabco sidii ay u heli lahaayeen siidar quality leh oo muxuu haayay dadka beeraleyda maadaama ay gacanta ay sugayaan ay tahay ta xukuumadda inay ka eegaan siirarka wadanka imanaya oo mid quality leh oo ay muxuu haayay wax ku beertaan ay siiyaan dhibaatada ugu weyn ay ka haysato xagga siirarka oo aad arkayso seed nin beeraley uu beerayo oo uu muddo ku tabcayo oo intaas oo sanadood uu wadayo oo haddana seedkiisi dhammaan uu baayo waxa fiicnaan lahayd intii ay ka qanci lahaayeen inay wax soo saaraan siirarka xun ee wadanka soo galaya awgeed in laga eego oo laabab baarar siirarka iyo muxuu ahaayay wax lagu beeri lahaa in la keeno waxa kaloon odhan lahaa waxaad arkaysaa marka ay beeraleydu wax soo saarto ee dadka xagga muxuu ahaayay galeyda garowga digirta iyo waxyaabaha soo dhani inay soo galaan suuqyada ama hay'aduhuba ay soo daayaan raashin badan oo marka beeraleyda wadanka waxa ka soo go'ay maadaan suuq ay la taagan yihiin kadibna dadkii beeraleyda ahaa ee dalagyada beertay markii ay ka jabnaadaan muxuu ahaayay raashinka kale ee hay'aduhu ay soo daayeen in ay ka qancaan inay dib wax u beeraan waxaan odhan lahaa markaa xukuumadda Soomaaliland dal waliba wuxuu muxuu ahaayay dalka kale ku dhaafaa waxa uu soo saaro dal waliba wuxuu sharaf iyo karaamo ku leeyahay waxa uu dhulkiisa kala soo baxo miyaanay habboonayn waxaad moodaa dalkeen siyaasiyiinteena inkastoo amaanayo wasiirka beeraha oo leeyahay runtii wax weyn ayuu qabto waa wasiirkii ugu wanaagsanaa intii muxuu ahaayay wasiirra soo mareysay
xagga wasaaradaha beeraha waxay u baahan yihiin dadkani inay helaan meelo ay ku kaydsadaan qudaarta oo waqtiga ay soo wada godeed ka soo dul dhacdo si aanay muxuu ahaayey suuqyada ugu jabin oonay beeralayduna u qancin in loo helo meel lagu kaydiyo in gacan la siiyo in seminaar loo furo in la garab istaago in muxuu ahaayey lala shaqeeyo oo siyaasadda aan lagu mashquuline wax soo saarka waddanka iyo muxuu ahaayey wax la qabashada dadka tabcanaya in lala shaqeeyo ayaan u baahannahay